Wadayaal ku soo dhawaada qaybta idaacadda Radio Baraarug Media iyo qaybaha kale ee warbaahinta Baraarug News ka gali kartaan gobolka saaxiibayaal ha ilaawina inaad ku dhufataan subscribe-ka iyo like si la gareysaan oo saaxiibadiina kale la wadaagtaan ha ilaawina saaxiibayaal si kasta markasta aad u heshaan macluumaadka halka inagu soo gudbino inaad ku dhufataan subscribe-ka commission-ka si laga xaqiijiyay kala qaadashadu way hooseysaa dalka oo dhan saddexdii cisho hore Hargeysa ama gobolka Maroodi Jeex oo ugu dad badan oo nus milyuun qof ay kaarka qaateen waa la sheegayaa 35 baa qaatay kaararka dadkii loo geeyay marka kaararka la qaato waxaan ku kalsoonahay maadaama fardihii xagga loo soo wada jihiyay maanta sida aqalku sheegay oo aan xag jihooyin kala jirin xoogii qaybsami jiray saddex xisbi ku qaybsami jiray aanu jirin inay guushu caddahay maanta inay sadducaynaya Suldaan Umar in ilaahay caafimaad sariic siiyo waa dhowr kelimadood oo iska dhayay warkii wana salaadii ba soo dhow dhowr kaftan rabaan ku daro midwa de xisbiga wadani horta lama kala laho kamaanta soo galay iyo kii shalay joogay wala wada leeyahay inuu Cabdullaahi Darawal joogan jeclaayo bariyan ay soo dhacday inaan wadani sameeyo qofkii ugu horreeyay u tagay buuha aan ku xisbiga nala samee bariyan uu shaqo tagay wuxuu waa yare shaqo tagay maanta markuu kacayna واسل هذا وكل واقع ما تعطي فرصة دي هلا ساكتة إنه حسب قصوى قلي وكان صاحبي عبد الله وعليه فرصة صدق حديك وسيء رضي الله كذب استوى شعر إسماعيل شوقو صدق دي بهذا هالك كشيء أنا هذا شعر صدق هالك كشيء ما أنتو أنا صدقني وخدي شغلي وأنا هاشم عبد الله مركا حافظوا ويسكون الحشرانو لعنا بهنا محمد ديرية إدري يخرج شيء وحرم هذا غيا intii nala joogtay ee nala asaasay xisbiga oo aan jecelahay in gaar u xuso abwaan qolqol oo maanta halkan laga xusin oo kamid ahaa asaasayaashii xisbiga karawan hayana doorkii uu ku lahaa hawshan saanka in badan aan ka warhayay abwaanka waan mahadnaqayaa